amaanu hasheen maantee بسم الله الرحمن الرحيم داود كسو دو غرب تي في oo aad uga barateen barnaamij xiiso leh barnaamijkani waxaanu uga hadli doonaa warar farxad leh waaye maanta oo kaleeto madaxaana furan waa hambaliyada loo jeedinayo madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu kasbaday amaan iyo bogaadin uga imaanaysa adduunweynaha oo dhan ha aato European Union, African Union, Arab League, Asian Pacific iyo Mareykanka intaba waxa ay leeyihiin mudane kusoo dhawaaw xilkaas lagu igmaday waxaanu ku rajeynaynaa guul bay leeyihiin waxa sidoo kaleeto shanta Soomaaliyeed oo dhan looga soo hambaliyay madaxweynaha ha aato Djibouti ha aato wadanka aanu jaarka nahay ee Kenya ha aato Ethiopia Soomaalida degta oo dhan ayaa u soo hambaliyeysay waxa kaleeto oo u hambaliyeeyay Professor Jawahiri madaxweynaha waxa uu yiri waa ninka kaliya ee maanta u baahan tahay Soomaaliya isagoo ku amaanay waqtigiisii in uu baarlamaanka mariyay sharciyo aad u badan wuxuu yiri dabadiis wax sharci ah oo gudbay baarlamaanka ma jirto Xasan Sheekh waa nin oday ah oo samakatalis ah ayuu yiri Professor Jawahiri oo u hambalyeynaya bal inala dhageysta yaana hadalka idinku sii daahina daawasho wanaagsan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصلاة الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعبد الله السلام أجمعين والحمد لله رب العالمين مدنيال دمان شعبي الصوماليين ملك السوء جوغان بوا سلامتهين سلام كبعدي وحان مناسبة أن جعلها إن مناسبة أن أجيدي وحنبليو إيو الدعاء سوجرتا مدني حسن شيخ محمود وحالي سيد المقرات الله دورتي وكوكولي سيد دورشدي وريق استحاد إنو نغضو loona doortay inuu noqdo madaxweynihii tobnaad ee jamhuuriyadda Soomaaliya guusha ayada waa guul u soo hooyatay ma aha kaliya in markaa in tiimkiisa u soo hooyatay waa guul u soo hooyatay jamhuuriyadda federaalka oo dhan iyo shacbiga Soomaaliyeed waa guul u soo hooyatay dhamaystirka dhismaha dowladda ee jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya waa guul u soo hooyatay haddii la kooriyay tixgelinta u aabayeelka guuxa shacbiga Soomaaliyeed iyo horitamin la siinayo rabitaanka shacbiga Soomaaliyeed alxamdulillah waxaan u leeyahay waxa weeyaan haddaad u fiirsataan Xasan Sheekh iyo aniga muddo badan aan soo wada shaqaynay umana baahna shacbiga maanta in looga sheekeeyo yaa waaye Xasan Sheekh looma baahna hase yeeshee midda aan rabo inaan xusuusiyo waxay tahay in markuu ahaa madaxweynihii sideedaad iyo barlamaankii sagaalaad ay wada shaqaynayeen dhismaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hay'adaheeda dowladda lagu dhisaayo oo dhan waxay badanaa shuruucda hadda oo laga shaqeynayo waxa ay ansixeen 2014 intuu asaga hogaaminayay dowladda Soomaaliyeed hase yeeshee ilaa hadda iyo bacda 5 sano ka bacdi marka hadda dib u fiiriso wax lagu kordhiyay oo ama ujeedo shuruuc ama loo hagaajiyay ama saldhig loo sameeyay dhamaystiridda ama dhismaha hay'adaha dowladda oo muhiimka ah inta hadda jirta waa intii la sameeyay 2014 haddaad fiiriso ama qiyaas aad ku samayso meeshii uga tagay umay joogtaa wax loo dhimay mooyaane wax oo u soo kordhay ma jiro wax la dhamaystirin ma jiraan waxyaalo badan oo marka oo markaas la ansixiyay shuruucdooda la dejiyay oo u baahan kaliya in la dhamaystiro oo aan la dhamaystirin meeshii asoo uga tagay oo yahay maadeen saas daraadeed u leeyahay waa guul u soo hooyatay dhamaystiridda dhismaha hay'adaha dowladda jamhuuriyadda Soomaaliyeed ay ku cad istaagi lahayd waxa kaloo xusid mudan muddadii hadda ay socotay doorashada oo hadda lagu dhisay lagu abaabulay baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha arrimo ugu ah ayaa jiray oo hore aan u dhici jirin taasoo ay ka mid tahay haddaan ka soo bilaabo guddoonka baarlamaanka federaalka waa markii ugu horeysay oo gabar Soomaaliyeed ay ka mid noqoto xubin ka noqota guddoonka baarlamaanka taas waa arrin soo hooyatay arrinta kale ugu ka waxay tahay iyadana in madaxweynaha Soomaaliyeed oo laba jeer loo doorta yani laba jeer la doorta inuu asaga Xasan soo baxay waa arrin iyadan ugu ah
waa jirtay maarta arrimo badan oo kale ugu hore aan noo soo marin oo laakiin ka horeysay bishii Maars wixii ka horeeyay Maars wixii ka soo bilowday wixii ilaa hadda laga soo gaaro oo ay bilaabatay howlaha abaabulka baarlamaanka waxay u socotay si maarta oo sidii loogu talagalay ay ku baacay ku socotay waxaan ammaantaas iska leh hawsha sida u socotay waa ra'iisul wasaaraha iyo xogeynta guud ee baarlamaanka federaalka wada shaqeyntooda ku jiray howlwadeenada baarlamaanka kuwaasoo u baahan in maarta ammaan iyo shahaado sharaf lagu siiyo sida ay u wadeen ilaa intii aan guddoonka la sameeyay u soo shaqeeyeen iyo barnaamijka ay dejiyeen sida u soo hirgalay ilaa doorashada madaxweynaha laga soo bilaabo bishii 12 Maars ilaa maanta May barnaamijka ayaga ay hogaaminayeen waa ku faraxsanahay ani waxaan ku dadaalaa waxaan soo jeedinayaa in maarta shaqaalaha ama howlwadeenada baarlamaanka iyo xogeynta guud ee baarlamaanka la siiyo shahaado sharaf lagu ammaanayo hawsha sida ay u fuliyeen maadaama ay yihiin lafdhabarka baarlamaanka wadadooda marka ilaa inta guddoonka la sameyn hawsha ay u soo wadeen waa ammaan gaar ah aan ay ku jeedinayo haddii aan la yiraahdo waxaan mar kale aan marta xambalyo iyo duco u jeedinaynaa madaxweyne xasan ilaahay garabkiisa ha galo annagana waxaan diyaar u nahay shacbiga dhammaan waxaa weeye hal qofna wax ma bedeli karo hal qof kaligiis wax ma bedelayo hoggaan fiican iyo tilmaamuu samayn karaa laakiin wax ma bedeli karo wuxuu u baahan yahay dhammaan muwaadin kasta Soomaaliyeed inaan ka wada shaqeyno sidii jamhuuriyaddan maarta arrimaheeda aan dhidibada loo aasi lahaa sida maarta dowladda goboleedyada ay maarta ay u dhismi lahaayeen sida maarta haddii aan ku rooyahay in siyaasaddan oo aarsiga meesha laga bixiyo oo tooso daawade intaasi ayaanu kusoo afmeeraynaa hambalyadii loo jeedinayay madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud intaan hawada ku kulmayno waxaan kaga tageynaa nabadino iyo nooli kulanta bye bye